taariikhda waddanka Spain waa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu caansan luqadda Isbaanishkuna ay ku abtirsato. Waa dhulkii ay muslimiintu xukumayeen boqolaal sano ilaa maantana uu raadka muslimiinta ka muuqdo. Spain waa waddan dhul ahaan dhaca meelo kala duwan sida Yurub, Badweynta Atlantic, Afrika, badda Mediterranean-ka, laakiin qaybtiisa ugu weyn waa mid dhaca galbeedka qaaradda Yurub, waana dalka leh boqolkiiba 82 jasiirad-lamoodka Iberia, waxaana la wadaagaa dalka Portugal oo kaga beegan dhanka galbeed. Buraha Pyrenees ayaa kala qaybiya Spain, Faransa iyo waddanka yar ee Andorra. Gobollada ka baxsan dhulweynaha Spain isla markaana hoostaga Spain waa jasiiradaha yaryar ee Canary Islands ee dhaca Badweynta Atlantic, jasiiradaha Balearic ee dhaca badda Mediterranean-ka, iyo labada magaalo ee kala ah Ceuta iyo Melilla ee dhaca xeebta waqooyi ee Afrika. waana magaalooyin leh maamul madax bannaan oo hoos taga dowladda Spain, waxayna xad la wadaagaan dadweynaha Morocco. Webiga ugu weyn dalkani waxaa la yiraahdaa Rio Ebro. jasiiradda ugu weyn dalkani waxaa la yiraahdaa Mallorca. harada dabiiciga ah ee ugu weyn dalkanina waa harada Sanabria. Spain waa mid dhaqaale ahaan ku tiirsan warshadaha, waxaana lacagta waddankani lagu magacaabaa euro oo wuxuu ka mid yahay 19 waddan ee la yiraahdo Midowga Yurub ee adeegsada lacagta yuuraha, waxaana la isku yiraahdaa Eurozone. Spain waa waddan leh taariikh aad u qoto dheer, wuxuuna soo maray marxalad xasaasi ah oo laga qoray buugaag taariikheed oo aan xogtooda hal muuqaal lagu soo koobi karin. balse ilbaxnimada waddankani waxay soo bilaabatay 711 miilaadiyada, markaas oo ay muslimiintii Umayyadeed u tallaabeen jasiirad-lamoodka Iberia oo maanta intooda badan ka kooban Spain iyo Portugal. waxaa xilligaasi dhulkan ka bilaabatay taariikhda ama casriga Andalus, waxaana furtay Musa ibn Nusayr iyo taariikh Bunisiyaad. waxaa dhulkan ka aasaasmay dowlado badan oo Islaami ah. wuxuu ahaa xilligaasi mid koobsaday cilmi iyo ilbaxnimo. muslimiintii Andalus waxay dhulkan kaga tageen ilbaxnimo gaamurtay oo ilaa maanta ay Spain ku faanto loona dalxiis tago, sida qasriga cajiibka ah ee Alxamra ee ku yaala magaalada Granada, waxaana qasrigan darbiyadiisa ku qoran aayado Qur'aan ah. sidoo kale waxaa magaalada Cordoba laga helaa masjidka weyn ee Grand Mosque of Cordoba, waxayna awoodoodii gaartay ilaa Amerika, halkaas oo ay ka bilaabeen nidaam gumeysi ah. calanka waddankani aragtiyo kala duwan ayaa laga aaminsan yahay midabkiisa, laakiin aragtida xooggan waa in midabka guduudan uu u taagan yahay awoodda iyo geesinimada, halka midabka jaaluhuna u taagan yahay wanaagsanaanta. astaanta dhexda kaga taalna waa mid u taagan boqortooyooyin kala duwanay ee midoobay ee Spain ka samaysantay. Spain waa waddan leh boqortooyo dastuuri ah oo ay awoodeedu xadidan tahay. magaca rasmiga ah ee dalkanina waa Kingdom of Spain ama boqortooyada Spain. saddexda magaalo ee ugu weyn Spain waa Madrid, Barcelona iyo magaalada Valencia. Madrid waa caasimadda dalkan, waxaana sida guud ku nool dad gaaraya 6 milyan oo qof, waana magaalada labaad ee ugu weyn Midowga Yurub, waxaana ka weyn kaliya caasimadda Jarmalka ee Berlin. dadka ku nool Spain tiradoodu waa 47 milyan, boqolkiiba 80 waa dad reer magaal ah oo dhanka magaalada ku nool. luqadda rasmiga ah ee dalkanina waa Isbaanishka, waxay luqadoodu hooy u tahay in ka badan 500 oo milyan oo qof. luqadda Isbaanishku dadka Spain boqolkiiba 56 waa kuwa aaminsan Kiristaanka, waana kuwa raacsan kaniisadda Kaatooliga ah. boqolkiiba 39 waa Bilaadiin, inta soo hartayna waxaa ka mid ah muslimiin.